بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إذا لهانتين بالنبضة وضيال ملك استود دافع الدنيا كشوكتان كسر دوادا برامج كارو أو أنا قلت لك قلني اللهم حرست أبوان مرحون محمد حاشي دمع قارية أو تضبط كي أين كسر قدمني أسقرن لو قسمي مقالة هرقيسة هذا برامج كانوا أو برامج كان أو بردقة أو أي قلق قادنين أبوانين دلني يراه يولي وحيابها يكيد هذين أسقي اللهم حرستي مرحون محمد حاشي دمع قارية معلن كي وينا أبوان كي هالأبور إنه قد مانتن إلهي وقبرينين ونحرستي شنا كورابيو هذا برامج كو حي قلق قادني هذا لك كبلاب أحمد إسمان بطون محمد عبد القادر الهيا بربركيgan kalena waxa fadhiya Maxamed Cabaade Yusuf Aarey ayuu ku magac dheer yahay dhanka kale waxa fadhiya Khalid Muuse Ismaaciil Klish ayuu ku magac dheer yahay iyo waliba Cabdirasaaq Maxamed Cabdilaahi Oday dhamaantii ku soo dhawaada barnaamijka aan ugu horeysiyo gabayga oo Axmed Ismaan Batuur ka diyaariyay Allahna naxariiste ama uu ugu talagalay أبوان كوينا ابن حارس جناها وقديقه معلنكي محمد حاشي دمع قارية كسو دو قد ما سنتهي سينب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إنا لله وإنا إليه راجعون محمد حاشي دمع إبها ونحرسته حرستي سقالي قني إلهي هسيو أنا بمشعلي إن أنا راهضو محمد حاشي كم وهايو waayo maxamed xaashi iga baahna sharaxaad iyo dadka inaan baro wuxuu ahaa qof bulshadu ee tusad ay taqaanay oo waliba lagu yaqaanay wanaag samafal toosin iyo hiil tan yarta iyo ummadda lagu yaqaanay anigu daahan deyn badan baan ka yaraa waqti aan fogeyn baan isbaranay wuxuu ahaa waalid buu yahaa aniga markaan leeyahay waalid buu yahaa dadka inta badani waxa laga yaabaa inay si kale u fikiraan dadka uu abwaanka u ahaa oo dhan maxamed waalid buu ahaa dadka uu hadana sida gaarka ah suugaanta waalidka ugu ahaa ee ugu dhadhow ayaan kamid ahaa run ahaan inteenan meesha isugu timidna waxaynu ama xafladan ha noqoto ama barnaamijkan ha noqoto ama xafladii ka horeeyay ha noqotee dad badan oo halabuura ayaa waxay ku soo bandhigeen suugaan waxaan oran karaa waxa hadlaya dadka maaha waa mihnadii maxamed xaashi ka dhintay ama ka geeriyooday oo ah tii suugaanta ama gabayga ayaa dareenkeedii hadlaysa oo iyadii dad badan oo aan halabuur ahayn ba xataa geerida maxamed xaashi damac gaariya Allah u naxariistay ay ka soo saartay in ay gabyaan oo ay u ooyaan ama ay u baroordiiqaan anigu ma oran kara abwaan baan ahay oo ma sheegan kara abwaan waayo abwaannimadu ma aha darajo la iska sheegto ma aha darajo siro dhib yar loo gaaro ama siro aan la iska sheegto ma aha abwaan waxa ku sifoobi kara qofka sida marxuumka aynu xusayno maxamed xaashi damac Allah u naxariistay kamida la midka ayaa ku sifoobi kara anu waxaan oran karaa waxaan ahay dadka raad baradka ku ah curinta ama halabuurka jecelna suugaanta lafteeda goor aroor hore ah kowdii bishii koobaad 2012 anigoo aan wali gurigayga ka soo bixin ayaa telefoonkayga aan furay dabadeetana telefoonkii u horeeyay soo galay ayaa waxa uu ii sheegay war aan weligay loobi doonin san uga naxay oo ahaa geerida Allah u naxariistay haliyigii reer Soomaaliland abwaankeeni mujaahidkii macallinkii professorkii rabbi ha u naxariisto maxamed xaashi damac gaariye run ahaan saynabay ma qiyaasi karo dareenka aan markaa ku sugnaa tixdan aan ku baroordiiqayna aniga markii telefoonka la iigu xaqiijiyay in uu geeriyooday nin Ibrahim Ismaan Axmed leeyahay oo wariyaasha radio Hargeysa aan ka wada shaqeynaa ayuu ahaa qofkii ugu horeeyay ee xaqiijiyay daqiiqada kadibna Cabdilaahi Salabaan Bidde oo Oslo ku sugan imika Norway oo aan halkan aad iyo aad uga mahadnaqayo ugana ducaynayo Soomaaliland oo dhan uga ducaynayso ugana mahadnaqayso sidii wanaagsanayd ee quruxda badnayd ee isaga iyo jaaliyada reer Norway baay marxuumkaasi intii uu xanuunsanayay u hayeen u ilaalinayeen u dhowrayeen ula shaqeynayeen u caawinayeen ayaa uu ahaa qofkii labaad ee aan la hadlaa markaas aniga tixdi run ahaan
iga soo baxday intaa wixii ka dambeeyay madaxayga ama laabtayda aan idhaahday ayay ku diyaarsanay dabeetana saacada kadib waan qoray tixda waxaan u bixiyay garyaqaan haddii kulli dadku af Soomaaliga way garanayaanoo maxamed xaashi dhamac waynu naqaanay dadka siduu ugu garsoori jiray muranada siyaasadda siduu ugu garsoori jiray yani laba qof oo ag fadhiya ama isaga ama u dhawi oo halku waqtiga ku sugan yahay yani wax isku hayaa siduu ugu garnaqi jiray ee cadaaladda ahayd ee saxda ahayd ee runta bilaa gabashada ahayd waynu garanaynaa garyaqaan waxay odhanaysaa gabayahow isdaydayo waa tan deemkaba waa kanaysa soo daydayday isu yimi run ahaan gabayahow isdaydayo gama iyo hurdaba diidmaan sida godkeeda iyo gundhigii murtida iyo tixda gogoldhigeeda goblanta iyo guntiga xidho galoolka iyo maraag iyo baholaha gurguurti iyo giiraha shabeelka iyo galowga iyo fiintay ila gooha maanto gabi oo baroorto ila gana sawaariikh golihii abwaanka oo ilmo gabax ka siiyo gunto weerka dhiilada fanka garabyadiisa iyo dhaqan guurtidiisa iyo ganaya hadraawo ila maqal galiilyada inta qalinka godashay gurta midhuhu beeriyo gudidii tacliintow gilgisho dhamaantiin ila gocasho oo wada galab roordiiq guula qorsheeyo naflahan gafayno geeridu xaq weeye ma galbaday halyeeyii geesigii ma dheelmaday dhaaxuu gurxamayo sida aarka guuxo tala igu guneeyay gaariya ma jiito ma godgalay libaaxi ma gudo ma gaabsaday nagamu go'aynina ma u guuray meel kale gurgurshaagi weynaa weli geedigoon degin gabayo wax ma nagu furay mana dhigay gabaahiir wadku gamas ma saaro ma ka gooyay ruuxdoo gaashaan ma celiyay markuu go'ay abwaankii inta geeska taaliya gidigood adoomuhu markii ay gudoomeen gariirka iyo qaylada gabi maysu tabiyeen goblantooy adduunyo ay gubad iyo xajiinay gurboodka iyo maatida hadba gulufku kiciyay marba geedka muuqday gurashada ku roon iyo gobod iyo gobnagu weyn geerida u loogay waxaad goysay meel weyn gaariyow halyeygii ku guntaday dhulkiisa gacantii afkiisa iyo gabaygaba ku dhiciyay inta uu u golongolay guuraha habeenkii iyo u gaajooday ciidow garwadeenkii maxastow sakaraad gudoontay godka ee bakuunuur galad baa sixigiyo samir baan gudoonsanay waxa aan gaboobayn garashadii ilaahay gaariyo u siiyay gaarka looga yeeliyo gacantii furnayd gudoonsiinta deeqdiyo go'aankii xaqiiqdii waxa aan gaboobayn codkiisii gantaalkiyo gudbintii iyo dhawaaqii guubaaba heeskii golayaasha maansada waxa aan gaboobayn gacantii barbaartii garta hooga tuskeedii gudiyeynta taladiyo galabtay qaraadhahay arrimuhu gorfayn jiray waxa aan gaboobayn gulufkiyo colaadii geygan uu soo maray gaashaan ahaa adag oo lagu goblamay oo gabanaynin weligii guud mar weeyi maan goyn garashana waxbaa dhiman gaariyeyntiisana geeraarmo koobe hadal waxaan ku gaabsaday guulow wallahayow galladaada siiyo galbiyo fardowsiyo jannadaadii gaadhsii aamiin waxaan ka codsanayaa dadweynaha daawanaya barnaamijkan qof kasta inuu 11 faataxa u maro abwaan maxamed xaashi dhamac gaariye وانا mahadsantii aad iyo aad baad mahadsantahay Axmed Ismaan Batuun waa maansadii sida uu daawadayadii ka warramay maskaxdiisa ku soo dhacday waqtigii loo sheegay Allah uu naxariisto geeridii marxuum maxamed xaashi dhamac gaariye mar kale waxaan leenahay Ilaahay waxaan uga baryaynaa naxariistii janno inuu ka waraabiyo oo waliba الفردوس كعسومة يعني إلهي وقبرينا دادياش برامجك ينتهي كلا قيب قادنا السنة سداس بإلهي وقرتشينيان مركان عن كسر دوي محمد عبد القادر على هاي أو بربر كيجا فرديا يولي وحي وكيدي إن غيردي أبوان قارية كسر دوي إنا إله وإنا إليه راجعون كل نفس ذائقة الموت قفل بقى أو الدنيا دم كنا على معلن مع المح كمدو تجيا لكن إسويدين تروح تيقفكم محيو كل شيء محيو كل تجيا محمد حاشي دمع قارية halkan lagu ma soo koobi karo wixii uu qabtay wixii uu geeyay wixii uu ku sugnaa hadii aanu aan si kooban u sheego hadalka nuxurkiisa iyo naxwihiisa waa la qaatay oo wax qaatay Abwaan Batuun ba qaatay laakiin hadii aanu si daba raacno maxamed xaashi dhamac gaari ilaahay qabriga ha u nuuro waxaan ku tilmaami karaa inuu ahaa cilmi aqoon cilmiguna waa bad oo laga magayoodo aqoontuna waa arri oo ma dhamaato sidaa darteed anigu waxaan ku xusi karaa oo aan ka eegi karaa xurmo xilkeed madan inuu ahaa waxa kale oo aan ka eegi karaa xogmaal xeeradaysan inuu ahaa waxa kale oo aan ka eegi karaa xasuus xardhan inuu ahaa marka aan leeyahay xogmaal xurmo xilkeed mudan hooyadii qamaasha Allahu naxariistay ayaan anagu jaarahan jirnay xilliyada qaar oo ku jirtay xaafadda Sheekh Madar
waxaana hayn jirtay walaashii Khatar Faarax yare xilliyadaasoo kale marka uu hooyadu imaado hooyadu waa ayeybay gaadhay ayaduna mar kasta waxaad moodaa inay waalid ku kor u sii kacayo oo xogtii iyo magaranaysa ilaalintii iyo baylaha ka dhowrkii ay mar walba dibadda ugu taagan tahay halka uu hooyadii ku arko ayuu kula fadhiisan jiray oo madaxa kaga dhukan jiray taas waxay cadeynaysaa inuu ku taagnaa xadiiska Kaleey salaatu wasalaam ee nabigu lahaa arjana taqdi aqdam ummahat waxa weeye qof hooyadii magaranaysa ilaalin jiray baa taasina waxay nagu beertay inaan xasuusta marka xagga suugaanta badda ah ee aan la kala gudubsan laga imaado inuu ahaa qof aad ugu dheer oo ixtiraamo waalidkii markaan la heey xogmaal xeeladaysan sidoo ereyada u sharax jiray waayo Soomaaligu had iyo jeer xaraf raac buu leeyahay waxa laga eegaa xagga hore laakiin isagu wuxuu doon jiray bal inuu ka eego af Carabiga sidoo ku yahay Soomaaliduna maadaama aanay heesihii wada gareen Carabiga suugaanta iyo tayeynteeda waxay ula daadegtay inuu ka dhaxbaaro Quraanka oo shamsi wadxaaha wal qamar idaa talaha wal nahaaru idaa yakhshaha halkaasoo kale ayuu ka soo saari jiray xarafka hada waxaan oran karnaa waa nin suugaanta meel kasto ay gasho ugu tagay qalbigeygana marnaba aan ka baxayn sida bulshadeynta kale ay la qabto waxa kale oo aan oran karaa wuxuu ahaa hal xidhaale xusuus mudan waayo maalmaha kamida ayuu waxa uu noogu yimi meel aan ka shaqeeyo goob caafimaad fooq baa naga soo horjeeda leeyahay fooq ilmo Umar Xaashi birba koonaha kaga taala intuu bisaaw eegay birtaamiyad garanaysan wax ka jawaaba la waayay rag cirala oo isaga ka waaweyn iyo qaar ka yaryar halka waxay nooga cadeynay inuu taariikhda aataarta dhulka u hayo wuxuu birta leyd baa ka bixi jiray leydkaas imika Hargeysa ambadiisaba Somaliland waxay leedahay wada nalkaas inkastoo kale iftiin badan yahay laakiin waa isku mid xilliga nalkaas oo kaliya daarta ka bixi jiray marka la shido waxa loo jecel ceediba dib soo noqoto marka waxa uu ka yiri leydka shida magaalada iyo lugumood nalkii Mijirkoos waliba muu sheegin oo halka ku mudayne waxa uu sheegay cidii lahayd oo waxa ereyada lahaa buu yiri barqad cas halka waxa ka cad inuu sheegi jiray xaqa qofka kale abwaanka uu leeyahay oo inta ereygu iska soo qaato halka kuma ilaawi jirin xilliyadii anigu aan maqlayna waxa jira aaladaha adduunyada imika wax kooban ilbirqsiga wixii dhacayba markiiba waxaad ka helaysaa Facebook marka imika waxay u qaadatay marka qaar kood aan Facebook-ba ka bannaxaba halkii ugu horeysay aan ka maqlo maansadayda anteeyana waxa la yiraahdaa mahadho iyada isturjimi doonta iyada ka sheegi doonta wixii aan ugala jeeday iyo dareenkayga xilligaas u ah anigu ka imika hadlaya meey ka maalinta hadlay baan laakiin imika waa xusuusin hadalkii maalinta iyo raadkii mawlisidii qoyan maasayda waxaan bixiyay mahadho waxaan ku bilaabayaa mowdka waa loo siman yahay kala samaruga roonle maalinta limeysaan liya ka baxo gacan maroodiyeed miliga waqtiga ku dabro huqdooda ku meeysay waa mahadho xaajada iyo dayaxmadoobaade waa laf dhuuxo maydhmiyo maran iyo lama degaani waxay maanta anuguna masalada ma jooga meertawaya adduunka iyo mucjisada iyo noloshiyo mahuraanka aakhiro mowdka ka marago mar hore ambiyada iyo rusushii la mariyo annamaan ilaabino maan maanacin qadarkee hayashee mudanaha tagay meel baa ay maqaro miiqtiraha iyo xangulada dareer baa imirin dhigo jirku dabaqa madagaad taariikhda macnayso ka marakacayso mareegihii suugaantiyo warlaliska maansada muftaxi afbaradkiyo miisaanka hadalka muga naxwaha idil miiraalay hawraartiyo mihigaanka murtida maaxdii aqoontiyo midhii intifaaca in madoonaga ahaa muran kama taagnee haliyay Maxamed Xaashi mowdkii xaqa haleelayo muy qusun ba tagay ma maleegan gaariye ifka uu mushaaxa murtuu kugula weheliyahay ilka wadi kuma aha ilka madikumaha inkastoo gabay madluumay suugaantuna muusanawgi miciyaha isgeliso mirti xalayo idil masafooyin jirdhay akuma hadha reebtay inkastoo geeraal mildhaabay markii geesigeediyo hal abuurkii miida macda soo qaban jiray sida mayiga roobka ruux lagu mabsuudiyo sagal ku meerin jiray waqtigiisa meel maree dunidani ka maarmay maanta waxaan ku nagi ahay intuu macallin weer baray intuu mayilsan u xidhay miyirkoodii u dhisay maankeedii tayeeyay intuu ubaxmankeed digay barbaar soo magooliyay jahligii ka maydhay dhaqankeeni ku milay muruqiisa u huray manfac uga tagay jira inta midhiisa wacnaa aymaanka aadmiga maalintii timaadaba sida muunu subaxeed cadceedo mar soo tidhi waaga looga majiirtay loo milil cabile waligu taagay waligu nool yahay mawlow allahayow jannadaadi macaaneediyo ku maamuud fardowso maca nabiga uga yeel qalbis iyo mashxarad ishiga looga maaree malaa'igtu faraxiyo kumuunay ilwaadsan iilka minan hodaniyo maqaam sare uga yeel midigtana kitaabka macbuudow ka sii guul waa ma dhaafaan iimaankuye samir nagu meel mari mahad weeye xaajada markastaba adkeenta
inna ilaahi wa inna ilayhi raajicuun markasta baanu mahadnaqaynaa ilaahi dunidan ina keenay laakiin sharafta kaga kaxeeyay iyo wanaaga وطاي aad iyo aad baad mahadsantahay maxamed cabdilqaadir colhaye waxa uu halkan inooga sheegay daawadayaal maansadii maskaxdiisa ku soo dhacday waqtigii uu maqlay marxuumka geeridiisa markasta waxaan leenahay daawadayaal aan idin ka codsanayna inta halka fadhidaana ay leedahay ilaahina uga barinay inuu naxariistii janno ka waraabiyo adduunka waa laga tagaa laakiin waxa mudan in qof kasta oo arkay qof kasta oo magaciisa maqlay iyo qof kasta oo daawanaya uu ilaahay uga bariyo inuu jannatul firdaws ka waraabiyo watay markana aan ku soo dhaweeyo maxamed cabaade yuusuf aare oo barbarkiga fadhiya haye horta إن الله رجعنا هاي حور حريصين مرحومك محمد حسن عقاري أبان كوين runtii sinaba walaal waqtiga aniga igu horeysay gaariye maqalkiisa iyo mas'uuliyiintiisa u dhageysto kullu waqti fog bay ahayd ila cad loo jiray radio halkan codka xooga min ardada Soomaaliyeed ayaa maasoo la yiraahdo runeel u nacab ayaa tii ugu horeysay in dhageysto amaan maqlo gaariye anigu aad u yar ولكن وحنا runtii dadka suugaanta iska jecel ayagoo iska caaruraba yani suugaanta aad u dhageysta ilaa maalinta oo afilayeen ahayd meelaha 7-8kii oo wax yar ahaa ilaa maanta runtii wuxuu ahaa gaariye awaankan ugu jecel suugaantiisa anaa ku daydo waxa weeye hadaba kulli rag badan baa aday muxuu ahaa rag badan ka hadashay oo muxuu ahaa wax taariikh badan leeyahay gaariye waa la sheegay waxa jecelna ku soo dhawaado runtii intaan waan ka xusi karo gaariye runtii 4 jeer muddo ku siman ayaan anagu isargnay gaariye iskumaanaan muxuu ahaa in badan ismaanaan rag 4 jeer runtii oo marnaan xaflad ku kulanay marna runtii aanu sheeko xogaa ku kulanay laakiin aan qadiya ismaanaan arki jirno 4 jeer baynu ahayd hase yeeshee suugaanta anigu aan leeyahay runtii ku jira gaariye hadii jeer qofka ugu badan ku halqabsado ayuha waxaan kalifiyay runtii horta wadaneeda gaariye lahaa marka laga tago hubada suugaanta yani inuu lahaa de waa yani qiimaheeda qof walba oo garan kara oo gaari xitaa heer oo isagu sameeyay miisaanka suugaanta Soomaalida yani awood iyo hibo halkaas iyo gaarsiisay runtii wada suugaaneed waxa runtii aniga ay raacay oo ku jala gaariye wadaneed aad dareemisay inuu ka wadaneed badan yahay waanta waqtiga waxa kale oo aan ku jala gaariye oo iskaga runtii mid ahayno anaa muxuu ahayn waxyaabaha sida gaarka u jala kamid ah gaariye oo qof qabyaalada aad u nacab waayo waxa isku hadii jeer la diya qabyaalada iyo qaranimadu way isku lidii hadii jeer haddii qabyaalada xitaa tay ka ugu roon inta yare adigu aad ka haysato waxa laga yaabaa in yani wadannimadaada ay ku tahay waa wax ka dhiman sidaa darteed runtii waxaan xusuusanayaa gabayadii waa abaaninta sida tooska oo aad ka yar tirada yar ee sida tooska oo yar qabyaalada naqdiyay ayuu runtii ahaa gaariyaha ugu waliba horeeyo rag ugu cadaad hadaan ku koob baahan waqtiga noolaa okay waxa weeye hadaba waxaan runtii jecelahay inaan wax ka xuso gabaygii ergo ee tiriyay 2009 bishii abriil 7keedii oo lahaa u qabiil kaaraan yani baasha qabyaalada sidoo nacba way jiraan runtii abaan badan oo aan qabyaalada ka qabiilay laakiin isagoo weerar si toos ah ayuu weerar qabyaalada mar kale mar qora iyo 2 iyo 3 ma ahayn intu gaariyo wax ka yiri waxa kale arrintu xusi kara isla maasadaasi marka laga xaq oo toroska ama saadaasha waxa loo karaa gaariyo wax isku mid ahaynin aan waqtiga imka noolayn waqti hore baraha aad u fudintayo loo jiray Sheekh Cabdiraxmaan Ismaaciil Sheekh Cabdi Ayuub loo yaqaanay runtii ayaa waqti malaha kontomay sano ka hor hadaanay ka badnayn ayaa waxa la baro xusoo maray meesha dulcad loo jiray bariyaan qaxna qaxtu yaale aan qaxtu gunaay marka sal meeshan alwaarmas ma xalay dhaga sal dulcad baa leeyahay marka sir dulcad ay gooran wadan bureer ku digay yani odaraska gaariye waxa aad ku dareemi karaysaa runtii sida uga hadlay waxay u fog marka qofka hadii jarmaasiyaanka waa laga yaabaa inuu odaraso sanad iyo 2 iyo 3 iyo 4 iyo 5 iyo wax soo socon kara falaaw ka sii fahmo runtii waayada jir qofka banka qofta aragtidiisa ay dheer tahay laakiin waqtiga ama sida ergo tirnaayay ee ahayd 2 iyo 9kii runtii waxa maanta xamar
labaatan sano ka bacdi ka jira ayaa muxuu ahaa yani duriskiisa runtii aad uga dareemaysay waa tahay abwaan hayn haddayna hoos ugu sii dhaadhacno okay aan hoos soo noqdo kulley runtii taa waa la xusay oo dee wuxuu ka yidhi afrikaankan xamar marka joogay iyo muxuu ahaa waa la wada sheegay inuu wax badan kasii hadlayo dee maanta jooga aan ku soo dhawaado anigu maasadaan tiriyey runtii brodiqda gaariye waxa ay habeenkii maalintii la soo sheegay geerida gaariye ayaa runtii siribay kama bixin guriga anigu maanta doorkii jooga ayaan ilaacadda ka dhageystay subaxa maalinta maan bixin dabeetana markii aan ilaacadda ka maqla runtii naxdinta aan nahay guriga maalintii kamaan bixin ilaa habeenkii sidii baan u joogay ilaacadahan dhegaysanayay kowdii habeen marka meelaha ahayd oo aan markii ilaacadahan dhegaysanayay iga wada baxeenna aan runtii ilmaynayo oo aan gabayadiisa kolba qaar dhegaysanayo ayaa muxuu ahaa ku yara anigu aan dhalay markaasoo 8 bilood jira ayaa soo toosay markaasna oo igu soo gururtay wax intuu soo toosay ayuu anoo fadhiya arkay markaasuu dadna soo gururtay markaasuu dadna ooyo isagoo anigiiba ooyaya ayuu isna caanu ooyaya ana gaariyana ooyaya isna caanu ooyaya markaasaan warcaws qaadi karmayne awal diiwaan qaban jiro ana yaxbaan sii jiro diiwaan u socon jiray muxuu ahaa la markaa gaxiso awal isma helalay halkii markaa gabayga markaa waxaan ka bilaabay ka yaraa baan markaa la hadlay oo yani faro noqday gabaygan aan ka tiriyey geerida gaariye wuxuu yidhi gabayo hurdada nacay geerida ay damaqdiyo gamuunta yeeshaan geliyoonayaayo ilmadayo gobolaynayo ho garkaygiyo gudahayga qoysay dhammaan geeskoo idil abaan ugu golrooniyo gaariye hadduu tegey ama caaweel galay dhaxaan habeen guday gama aad ka toostiyo guhaadaada yeelay miyay caawa gacaluu gasiin aad u oydiyo gaajo aad ka cabataa alalahay garigu tahay gobodeedu waxay tahay abwaankii guniye baar guud ahaanba maansadu gadda ay u dhalatiyo godka ay ka curatiyo halka ay ku gorotaba muddo badan gorfeeye gunta iyo salkeediyo intuu gaadho xididada inba gaaru qaadee badhba gobol u qeyday geesigu abtiriyo runta lama garoocdee murtigoodaladeediyo gunudhaca habkeediyo qorshaxeedka ereyada miisaanka kala guray maskaxdii garshaysiyo aqoon-yahan gardaajo suugaanta gaaxda helaga goldhigeedo meelaan cidiba gaadhsiin gediga ku simayo hawaankii guyaal badan gobaad raadcadeedii guntigoo adkaystee greenofka dananayo gumac ugu bareedhee gobonnimada dhaliyo hawaankii guyaal badan calankaa gugiisiyo dhidibkiisu gaamuray goduna cabanaystiyo meeluu ka soo galo inta badan gufeeye gooyaha ka jirayo hawaan garasho dheero in qabiilgunnimo yahay goloyada ka sheego iyadoo gadiid tahay geeraar ka tiriyo gusirkiisa ceebta ah kuma geyo intuu yidhi gacaliyo hilbays dhalay isu geyso mooye nacay kala korkooda geygiyo dadweynuhu awaanku guisiyo gogoshuu ku seexdiyo guntiga u ahaayo awaan geesinimo iyo garashiyo aqoon iyo gacan iyo waxbixin iyo guddoon la ysku raaciyo gobonnimada dhalashiyo garaale aftahanimo guulleh ugu nimceeyo kala mudan gabyaaguye geestaadu eegtaba garbaraar halgamayo taariikhda guunkii diwaanka aan gurin baaldahaba geliso guto waajibkiiso garaar la tiriyo inta gabaygu sii jiro geygana dad nool yahay oo lee geeridaadani garabkay jabisiyo wacashada xanuun kale waxaan igaba guurayn intaad goola keentiyo intaad goola dhalisiyo intaad geeda beertay midhihii ka guud baxay bulshooyintu gurato xusuusaan gadmay baa galaabaxayso geygiyo dhulkaa tabay goobtaad banayso gama kala irdhownaye diri waaye gaaxdiyo sida godolka dayreed duco kugu gul furato abaalaan go'ayn iyo gacaltooyinka intaan guulo kuugu barinaye hanadiiho godkaagiyo gurigaaga aakhiro gol ka mida fardowsiyo galladaha naciimiyo nimco wada gengemanoo rabbi kugu gargaariyo geedimidhuhu buuxaana ka yeelo آمين aad iyo aad buu mahadsan yahay maxamed cabaade yuusuf aan u gudbo khaalid haya khaalid بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون قال الله تعالى كل نفس ذائقة الموت
وإنا توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وجهرين با waxaan halkan taasi uga dirayaa dhammaan ummadda ahaantood meel kastoo ay dunida ka joogaan gaar ahaan reer Somaliland oo runtii uu ka baxay haliyey xusid mudan oo inuu maanta halkan u fadhino roodiiq haddii alla ku rooyay roodiiqdiisi waxa kale marka labaad waxaan ka tacsiideynayaa haddii alla ku rooyay caruurtiisii iyo dhammaan intii uu ka baxay ee uu aabaha abwaanka iyo baalkii aftahanka buu ahaa inta hadan kaga imaado horta gaariye de wuxuu ahaaba umada ayaa ka marxaati kacaysa ama afcidii af Soomaaliga ku hadasha meeshay doonta baa joogto hase ahaatee anigu gaariye markii ugu horeysay ee aan barto waxay ahayd ku dhawaad waqti aan ku jiray standard 5 dugsigii hoose dhexe halkaas runtii asal ahaantaydu waxaan ahay dadkan suugaan dhaadhiga leeraa runtii markan yaraana wax igu jiray un bay ahayd oo aad baan u xiisayn jiray waxay ahayd standard 5kii marka gabayadiisa haddii ilaahay ku dhigo hayaanku meel fogba waxyaabo gabayo badan uu leeyahay loo dhigi jiray waqtiga anigoon igu jirin haybadan suugaan tirintu ayaa waxa macalinka naga dhageysan jiray maalin walow khamiisa sida ay ahayd ban jeclay maalin walow khamiisa ba suugaanta loo dhigo waana laga dhageysan jiray runtii gabayada gaariya aniga dareen gooniya ay ilaahayeen oo yaani dareen gooniya ay ilaahayeen marka waxaan xasuustaa maalmaha kamida ayada ilaahay naxariista jannaha ka waraabiyo oo iyaduna ahayd dadkan suugaanta aad u xiiseeya ayaa raadiyo ka dhageysanaysay maansidiisa ergo ee walaalkay imika wuxuu soo baxday 30kii bishii Abriil 1992kii maansada runtii waan aad baan u dhuuxay waxa iga soo baxay erayo in kooban oo ay kamid ahayd abku doonaha sheegtay wuxuu baa ehliya dad nimkaan afaqaanaysi waxay la arkayeen midayso ujeed runtii aad baan u la yaabay marka waqtigana aad baan u la yaraa marka ayadii baan weydiiyay waxaan ku uri ay halka muxuu la jeeda abku doonaha sheegtay yaani micid doonaba runtii aad bay ugu macnaysay marka waxyaabahan gaariye ka xasuun yaani ku xusi karo maanta ama aan oran karo dadka uu dheeraaba waxa kamid ah haniya hami waxaan uga socdaa yaani maanta wadogtay waxa xamar ka socda haddii ilaahay ka dhigo waxa ummadii muslimka haysta wadogtay meel walba si ahaatee xamar isagu uu sifeeyay 20 sanadood ka hor buu yiri de dhulkan maasadan ergo waa kan ku sheegay inay Afrika madmadow iyo haddii ilaahay ka dhigo qolo ajnabi degi doonto oo tahay isaga han iyo hami ayuu dheeraa abwaanada kale waxa kamid ah hadal iyo haybad oo haybad ilaahay gooni uga yeelay buu lahaa waxa jirtay waqti gole ay mujaahidiintii ee sanamtu gole ay isku khilaafeen yaani wax adu khilaaf yarin oo laba loo kala go'ay waqtiyadii ay sanamtu hana qaad ahayd baa yaani bilowga ahayd deetana waxa dhacday maansidiisa saxan sox ayuu intuu istaagay ayuu maxamed xaashi dhamac gaariye taariikhaan baan ku hayaa waqtigaan ugu man jirin ayuu adugu wala maqli waay golihii buu soo hor istaagay maansidii buu bartii ka tiri halkii buu ku aamusiyo nin waliba hawshiisii buu qabsaday oo taasi waxay baalkii hadal iyo haybad ilaahay gooni uga yeelay nafurnimo oo yaani gaariye de maanta suugaantiisa xaq ugu dirro uu ku sheego xaq mar walba ku xisi jiray de kumay koobnayn umada afka Soomaaliga ku hadasha waynu ogeyn ceebtii haddii ilaahay ka dhigo ceebtii inuu ka hadlay ceebtii Algeria iyo Vietnam inuu ka hadlay Algeria iyo Vietnam inuu ka hadlay fadeexadii Watergate iyo Nixon ku dhacday inuu ka hadlay waxyaabo badan oo kale runtii hadan hoos ugu soo dago walaalsaynabay waxa ay ahayd koodii bishii October sanadkan 2012 waxay ahayd goor aroora todobadii ayaan soo kacay shaqadan fadhiyay marka koob shaaxan cabiyo halka meel yaro maqaaxi yaro ka hortaala meesha ka shaqeeyo ayaan fadhinay deetana waxa dhacday telefoon baa igu soo dhacay markii ilaahay telefoonkaasi marka lambar dibadda uu ahaa oo marka gaariye aad baan anigu uga warhayay maalintan uu dhiman doono 2 cisho ka hor baan la hadlaynay haddii ilaahay ka dhigo telefoonkii markuu igu soo dhacay baan qabtay hello salaamu calaykum deetana gaariye ayay ka baxday saakaba leeyahay
deetana anigoo arankii rumaysan kari lah ayaan bilnasiib oday uu la fadhiyaabay ayaan Cabdirasaaq oday oo kamid ahaa isna dadka aad uga warhayeen mar walba ka wareysan jiray ayaan la soo hadlay war Cabdirasaaqow sidaa heesaa jirtay balka waran falilah alxamdu Cabdirasaaqna uu igu naxay ma dhici karaysa buu igu yiri anna tiyo aan isagaba ula yimi ma dhici karayso runtii Cabdirasaaq baa soo hubiyay uu soo sheegay uu xaqiisi marka maasadan aan tirin doono isla markiiba horta ciwaankeeda yaani aan halkiiban ku xusay waxana nidhi isla markiiba erayadu way iga soo geeyay ma baxay haleeyay halgamaagii gaariye sidaas ay maasada ku timi waxaanay oranaysaa hoogtay adduunyoy habeen loo muhoyday habaas iyo murda caray habow iyo jidheeray dadka kii haybad liya hanadkaba ilduufay doqonkiyo hangoolkiyo dadka kii hilmaamaba hore uma hujumtida ma baxay haleeyay halgamaagii gaariye halganiya dagaaliyo hantaaqadii shalaytiyo imisuu hayaan dheer u soo horay dadkiisoo hawraarta maasada iyo hadalkiisa toolmoon ugu hidiyay dumarkii habaqlaha la duutiyay waqtigii halganka imisuu haraatiyo hareef iyo dhibaatiyo hanjabaad soo maray dulmi ruux harsanayo ku halaanalay xaqiisii imisuu haweenkiyo dulmanaha u hiisho heegan ugu jiray imisuu heeladiyo heemaalka dhaqankiyo ku habay jidkoodii يعني قف بلا آذنا الدنيا قف اللي بروح اللي يروح كفانه قفان دقن لهين وسوقانتيس وحوه كجرين ده قف معها ووحو ضدك كلو قفانه وما هيستو إمسوا هردوب قال هم يوجد ولا الدنيا ده هري إمسوا هليو صوصاري هنا دور دي الدولة حقليو أفكو هو يوبا geeridu xaq weeye kul hayin lagu baraariyo dadka kii hareeyay kul hadii abwaankiina naga baxay haliyigi maasadii haldoorkiyo heesiisa guunkiyo hogga tusaalihiisiyo higaadii afuu qoray ardaydu hanuushiya daayartay ku heesaan gaari uu hooyday magaciisa moo harin haddaan haddaba yani inta yar waxay sheegaysaa haddaynu maanta oo dhan niraahno gaariya dhintay maxaa de waxay noo qabanaysaa ma jirtay bal ducada ayuu isaga maanta wax u ah waxa oranaysa haddaan galiiliyada iyo baroortaba hadal tiro dumarkuna hangeliya hagoogooda xidhaan waxa man hagaajina ducan ku weynaya allow su'aalaha haray qabrigiyo hadhowtaba ku haday jawaabta hore u garansiye allow hooy wacaniyo haweenayda jannada iyo ku asumalkii roon allow durdurkiyo haraha reeraha fardoosiyo ku hagaaji meel wacan marka maasada yare gaabani isla waqtigii sida ciwaanka ka muuqata iga soo gooday marka waxaan ku soo gabagabeeyay Seenabi maanta wax u taraya waxa weeyaan falillahi alhamd inagoo u dhisna meel sadaqa oo kale ugu dhisna oo ajarkeedu socdo masaajid oo kale malcaamad oo kale waa kow inagoo library ugu magac darna inagoo akaademiyad sida lagu dhawaaqay oo kale waxyaabo noocaas ah oo magaciisa maanta kulli ma tagayo ummadda maanta ku hadaaqaysa laakiin inuu u sii xoogaysto usii jiro halkaasan kaga baxaya sirooyin baa ku noqonaya waxaan badnayn runtii halka u taabtay Khalid ayaan jeclayn wax kasi aan ku daro ana soo koobiya waxa weeye horta gaari hore noo sheegay wuxuu dadka waa soo buur runtii haddii gaariga naga baxay waxaan runtii aan ku waaninayaa dhammaan qaranka Soomaaliland shacbiyo dawladba inay ogaadaan cidii muxuu ahaay hadii la beenkeeda leeyeen gaariye ka hadhay ama muxuu ahaa ubadkii lahaa iyo daxaaska lahaa waa koow ta kale in magaciisii iyo muxuu ahaa hadii la beenkeeda leeyay isagana loo duceeyo meel muhiim masaajidoo kale iyo hadii la goobo taariikhiya iyo in lagu magac darana lagu xisaabtamo qorshaha hadii jarda ugu jiro marka hore shacabka iyo gaar ahaan waliba khaasatan dawladuna muxuu ahaa hamigaas inay ku xisaabtanto ku jiraan ku goobin runtii dawladda iyo shacabku qaranka dhan waata markale maxamed waad mahadsan tahay daawadayaal wali waxaynu bartan kaga jirnaa barnaamijkii gaarka ahaa inuu ugu talagalnay baroordiiqda geeridii ku timid Allaha u naxariistay marxuum Maxamed Xaashi Damac Gaariye oo markasta Ilaahay uga bareynay inuu naxariistii janno ka waraabiyo Cabdirasaaq Maxamed Cabdilaahi oday ayaan markana ku soo dhaweynaya okay bismillaahir rahmaanir rahiim waan ku dhawahay maalin axada waxay kowdii bishii tobnaad dabadeedna waxay la soo hadlay Khalid Klish wuxuu igu yiri qola waxba ka jira deedna waan hayo intaan dhigay baan ku waro waxba ma aan maqalay deedna waan iska dhigay inankii labaad ay soo sheegay lixdii baan filaynahay subaxnimo inaan macallimada noo Mukhtaar la yiraahdo Mukhtaar Xaashi oo Nuruddin School dhiga ayaa soo garaacay markaas isna igu dhisaa jirta
deedna labada qof markiiba waan shakiyay dabeedna waxaan garaacay Xuseen Cabdi Xuseen baa ii xaqiijiyay haddana anigoo ilmaynaya waan garan waayay gooraan mobilka dhigay waxaan si dhaqso ah u garaacay xaaskiisa Muuna Axmed Aadan Muuna ay xaqiijisay markaa deedna anoo ayaan dhigay mobilka markaasaan toosay dabadeedna anoo foofo dhaqanayo ooyaya ayay ugu tiri xaafaddu maxaa dhacay deedna waxaan u sheegay inuu gaariga dhintay xaafadii oo dhan baa wadooyday markii ugu horreysay araggiisu waxay ahayd 8 oo xaafadda uu nagu yimid markaa qaraabiye isku dhow baan ahayn wuxuuna markaa wuxuu ka yimid saaxiib laaaj waxaanu ku soo guuleystay tartan lagu qabanayay Ivory Coast dalka la yiraahdo oo luqadda Carabiga ahaa ayuu ku soo guuleystay markaa wuxuuna garan uu ku sawiran yahay anna waxaan la yaabanay ninkan iyo garankan marna waxaan eega gaariye wajigiisa marna garankan eega markaa nin hortii laga dhamaan karayo haddii la saada ka sheekeeya ma ahayn inteenan iyo in kale oo ka badan oo aad uga tira badanna ereyo badan bay kidhada saabatuunu sheegay waa halkii uu dadka baneeyay baa hadlaysa meeshii uu baneeyay baa dadka hadlaysa maalna waxaan xasuustaa uu igu yiri waxaan abaan u ahay waxa Soomaaliga ku hadlo oo dhan ka halka jooga KNFD jooga ka Djibouti jooga ka Oboq jooga ka waxa soo dhan baa aniga wabaana suugaanta bilaadan human heritage su'aalu markaan ka gabayaa bar waxaan ahay gabayaa dadka Soomaaliga ku gabiya afkooda dadka Soomaaliga ku gabiya ayaa mar waxaan noqonayaa Afrikaan baa gabayaa Afrikaan baa mar waxaan ahay gabayaa muslim dadka islaamka ah baan noqonayaa mar waxaan laga gabayaa iyo waxaan gabayaa humanity aan gabayaa waxa saldiba iyo gabayaa turaafka aan gabayaa aan tirinayaa wuxuu ka mid waxaan dareemayaa inaan ku contribute garanayo to the human heritage in general ayaa ku contribute waa yaa fiilkee warga caynka waay suugaad hadday sidaa tahay suugaan oo dhamay markaa waa isku mid si u bay wada qaybsataa inagu waxaynu qaybinay tixya tiraabaa Soomaaliga lagu dhahaa gaaladu waxay jeclaan poy iyo prose labaas u qaybinay Soomaaliga waa tix iyo tiraab waan xasuustaa nasiib waxaan u yeeshay ilaa guddigii markii Soomaaliga la qoray saddex toddobaadkii baan anigu 2 toddobaadkii markii Soomaaliga la qoray 2 toddobaadkii baan waxaan ku biiray guddiga Soomaaliga qoraalkiisa iyo dejintiisa ka qayb qaatay anaa gudayaa radiyo guddiga Soomaaliga waxa loo baahday inay bixin la sameeyo markii Soomaaliga la qoray inay bixin baa loo baahday markaas la yiri hala sameeyo waxa soo baxay poem iyo prose maxay u bixinaa waxa la qaatay tix iyo tiraab haddana u fiirsataan afafka suugaan afeedka ku shaqeeya oral literature suugaan afeedka ku shaqeeya wax qoran ma jiraan marka xasuusta la xasuusanayo wixii la yidhi way arkaa waxa wax ka tara wax la yidhaha iteration alliteration waxa weeye xaraf raac ayaa Soomaaliga lagu dhahaa erayo ku wada bilaaba xarafyo isku mid ah ayaa la yidhaha alliteration inka tix iyo tiraab xasuustoodu inaad xasuusataa way fududahay sababta oo ah waxay ku wada bilaabmaan kacbay ku wada bilaabaan alliterationkooda isku mid ah afafka suugaan afeedka oral literature waxay isticmaalaan waayo waxba boqora si loo xasuusto waxa la israaciyaa lamaanayaal isku xarafa rag iyo ruux war iyo wacaal joog iyo jiif kafan iyo kow يعني حاجة حاجة وحلا استعمالها أب يا أبنا دوع يا دليل وحلا استعمالها حرفه اسمه بدع وحلا قطها قال حسوس تيفوض إنسان وحكلوا عن التالن إلى هيوسي أو سوق أوير أو دكسيجو سوق كشراء أيوه جابي كوضع دقيق مادة دي جغرافيا مادة كي سكول كلودي قار كمل
waxa kaloo ah nin ay u siman yihiin luqado fara badani waxa kaloo ah nin doctora abwaan gaari waxa kamid ah abwaanada shaqaysta ee dhididkooda cuna waxyaabihii uu goonido kamid ahaa ee uu goonido lahaa ayay kamid tahay waxa nin suugaanta carabta oo dhan mid u kala dhigdhiga oo kala gura waxaan xasuustaa maalmihii uu tagi doono aniga iyo weersama iyo sidiiq iyo qoloyn saasa guriga la joogno waxa nooga sheekeynaya Abu Qaasim Ashaabi odaygii Carbeed marka hortii geeridu waa wax inoo wada yaala waana ninkii Carbeed waa kii lahaa لو كانت الدنيا تدون أهلها لكان رسول الله حي وباقي هذه الدنيا لغو واريو oo ay daay noqonayso waxaan laga direen nabiyadii la soo diray daha ku daasho laha dalageedaas tazawadu min dunya fa innaka la tadri idha janu al-layl hal ta'ishi ila al-fajr tazawadu kasahay qaata min dunya dunyada waayo inagu ma ogin idha janu al-layl hal ta'ishi ila al-fajr hadii gabalku dhaco inaan waaga gaari doono فمن عاش هذين نولانا 1000 سنة أو 2000 بلا كنا سنة يوم معلوم با يصير لنا قاضية إلى القبور حاجة أي حوالها مركب واحد سمي ما نصلي هذا قعشو واحد هذا جيس وجمه يدو جيريدو ما قادو مجلس ما جورمو قوش ما يشو ما جمبو ولجي تاريخ ذا جذبتيه وياها قلبنا يو جو يود مو يبل ميو قبل ما يا ما قدوم يا عبد mar hadii gantaashiyo genyadu jareeyo gubaabadiisiyo ardaydu gardaadshiyo gulufkiyo larkiisiyo seeftu galeeyo geeraaradiisiyo maansadu gareeyo maansadu gorfeeyo gabaygiisu nool yahay gaariya ma dhimanay ifkunbu ka guuray guulihii abuurow naxariis u geeyo jannada gaarka gaarsi raxmaanow annagana gargaarow samiriyo gudooniyo iimaanka nagu gaadh aamin mahmaha gundheero gobolkaynu joogniyo geeyigaba ka caanaaganayo sifayso geeridu sideedaba ruux garasho liitiya geeljira ku wacan tahay marka yaanay dadku u qaadanin geeljiraha nacayb aanu qabno laakiin waxa weyn mahmaadun baa ahayd qof aanad garanayn ay ku wanaagsan tahay geeridu sideedaba ruux garasho liitiya geeljira ku wacan tahay go'ashada xusuustiyo hal garaalna oo guulo Allahayo jannadaada gaarsii haduu ruux gaboobo boqolaalgu uu jiro goor ay ahaataba nafta inaad ka goysaa hawlaad gudoonkiyo go'aankeeda hayso ku gaaro weeye guulo Allahayo adiga gargaar loo gudigooda doomaha garashada samaanta iyo galadiyo wanaagaba ruuxii galshaystiyo kii aad u garataba guudkiisa saare jannadaada gaarsii goobtu istaagiyo gegidu fadhiisto dadku afarta geesood sida shinigadoodo boqorkeedii gaadho micideeda geedha leebkiyo gantaalaha galalkii ka saarto gaadaysa cadowgo guux dhageysanayso gabashada dhufayskiyo baalashii isgeliso goobaysa cadowgo dhaqdhaqaaqi geyso gadaas iyo gadoodkaas gaariya lacayno kolka uu gubtahanyaha saawo uu galo qof kasto galmoono goonyuhiisa jooga inuu gorodalulu geelaansho mooyo marna inuu gamaayo hadba gabi dhacleeya ma ahayn gadiise wuxuu guulahay baray haasawaha goshiisiyo gobta ereyadeediyo kaftankay garaacaan gurgurshaaga dhaqankiyo gaadiidka luqadiyo garashada saboolkiyo halgamaaga guushiyo giraan socodka maansada abwaangaas baxay iyo giraan socodka maansada giraan socodka maansada iyo heedhagamadiid aqligii ganeeye kala goro xumaantiyo marka goroda la isdaro waxaan waayay gaashaan go'ashada xusuustiyo hal garaalna oo guulo Allahayow jannadaada gaarsii gaagaabsi hadalkiyo goobaha nafwaagiyo qabiilku ka geegiyo gurmashada colaad iyo beentu ka goohiyo runtu gowru diidiyo xaqu garab istaagiyo wuxuu guulahay baray sida loo gudbinayo gada hadalka loo dhigo go'ashada xusuustiyo hal garaalna oo guulo Allahayow jannadaada gaarsii wuxuu ahaa gabaan yahow garab aan la heli karin iyo geedi meel mara gacantiisu hoodiyo wuxuu goynis mooye marna muu galgalan jirin umuu gabi dhaclayn ruux wuxuu ahaa gabood adag gaashaanbir aan jabin iyo geesi hawlkara wuxuu ahaa guniyo baar dadka gabayga baariyo suugaanta goolka ah ay gaar u sheegaan luuqdiisa goonka ah kala gurista faallada sheekada gunteedii ayaa gaari meeshii hadalkiisu geli jiray Allahayow godkiisiyo markaad geesa aakhiro gabdho xuralcaan oo qurux lagu guduujiyo ag fadhiisi geestaad
geestiaad ambiyada aad geesiyo kuwii gaaladii dilay goofkeeda jahanamo kuma geeyo mawluhu naaraha guntooda ololkoodu kuma gubo godka aad ku nooshahay rabbi afarta geesood guri wadaylaysoo gudcur aan lahayn iyo kaaga yeel mid gaasiran gocashada xusuusta iyo halgaraan loo wayo guulow allahayow jannadaada gaadhsiin aamiin ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu ducadaasi inaga aqbalo markaa waxaan odhan lahaa halabuurku maaha inagoo keliya halabuurku guddigood gabayuu ku ooyee guulow allahayow jannadaada gaadhsiin aamiin wataay aad baan idinku mahad celinayaa waxaan si gaara ugu mahad celinayaa cabdirasaaq maxamed cabdilaahi oday oo ah ka mid ah dadka iclaamiyey barnaamijkan inaanu qabanno waxaa kaloo si gaara ugu mahad celinayaa hal abuurada da-da yar iyo weliba abwaanada barbarkayga fadhiya oo iyaguna waqtigooda qaaligaa usoo huray inaynu halkani barnaamijkani baroordiiqdaa ku qabanno dhammaantood waanu mahad celinayaa barnaamijka barbarka haddaan ka bilaabo axmed ismaan batuun ayaa igala qayb qaatay maxamed cabdiqaadir alhaye ayaa ka mid ah waxaa kaloo barbarkayga fadhiya maxamed cabaade yuusuf aareey ayuu ku magac dheeryahay maxamed aar waatahay barbarkaygan kalena waxaa fadhiya khaalid mustafa ismaaciil kiliish ugu dambayntiina waxaa barbarkaygaasi fadhiya cabdirasaaq maxamed cabdilaahi oday dhammaantood waanu mahad celinaya waa tahay daawadayaal waxaynu soo gaarnay guntii iyo gunaanadkii barnaamijkaasi baroordiiqda ah ee aynu u samaynay allaha u naxariistay macallinkii weynaa abwaankii maxamed xaashi dhamac gaariye dhalinyaro kala duwan baa igala qayb qaadatay dhammaantiin waanu mahad celinaya intii igala qayb qaadatay ku dhaafaya asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu sociedade.